بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. سورة العاديات مكية وآياتها 11. سورة وحا الليلة هذا سورة العاديات 10 كيننا عاوحو قبل لابن هيا. سورة الليلة سورة العاديات أيو قبل لابن هيا. سورة داني ومكية سورة داني ووحي كمتها قرآن كالنبي عليه الصلاة والسلام لغسو دجيي انتوسن سوهي جرونين كهر وانا كو طبان آيات كيدو وحي قارهيان كو طبان آيادات بقارهيان، وهي تتحدث عن خيل المجاهدين في سبيل الله حين تغير على الأعداء فيسمع لها عند عدوها بسرعة صوت شديد وتقدح بحوافرها الحجارة فيتضاير منها النار وتثير التراب والغبار. وقد بدأت السورة بالقسم بخيل الغزاة إظهارا لشرفها وفضلها عند الله على أن الإنسان كفور لنعم الله عليه جحود لآلائه وفيوض نعمائه، وهو معلن لهذا الكفران والجحود بلسان حاله ومقاله، كما تتحدث عن طبيعة الإنسان وحبه الشديد للمال. وختمت السورة الكريمة ببيان أن مرجع الخلائق إلى الله للحساب والجزاء، ولا ينفع في الآخرة مال ولا جاه، وإنما ينفع العمل الصالح. سورة waxay ka hadlaysaa walaalayaal fardaha jihaadka lagu aado oo ilaahay uu ku dhaaranayo subxaanahu wa tacaala markay acdaada farduhu weerarhayaan, dhawaqa ka yeerahaya, qoobabka ay habeenkii markay guuraynayso ay dhagaxa ku dhifato iftiinka ka baxahaya, boorka iyo waxa weeye qubaarka ay kicinayso markay weerarayso gaalada. fardaha jihaadku ilaahay ku dhaaranaya subxaanahu wa tacaala. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات بان كدارتو يري الله سبحانه وتعالى فرده دغدغهي ضبحا حاليهن كو صودينهيا او حورتامنهيا اما قيلنيا. فالموريات قدحا فردها ضبك قوبكودا ku kiciya markay guuraynayaan oo dhagaxa ay ku dhiftaan baan ku dhaartay. falmuqiiraati fardaha weerara ciidanka gaalada subxan waqtiga subaxa ah ayaan ku dhaartay. faafarna kicinaya bihi bimakaanil caduwi cadowgu meesha uu joogo naqcan boorka kicinhaya. fawasadna dhexdhexaysanhaya bihi bisababil naqci boorka sababtiisa jamcan ciidankii gaalada ay bartamaha ka istaagahayaan. intaas baan ku dhaartee innal insaana insaanku lirabbihi linicmati rabbihi ilaahay nicmadou u galay lakanuudun mid ku jisaarid badan oo diidid badan oo inkirid badan oo kufraan badan oo nicmada ilaahay aan ka shukrin weeyi. wa innahu ilaahayna calaa daalika arrintaas insaanku ou samaynaayo iyo diidmadaas la shahiidun waa mid ilaahay waxa weeye maraka ah, waa mid daalacan haya oo caalimku ah ilaahay subxaanahu wa tacaala. wa innahu insaanku lixubbil khayri xoola jacaylka la shadiidun waa mid aad ugu daran. afalaa yaclamu miyuusan ogsoonayn idaa bucthira markii la soo faago oo la soo bixiyo maa filqubuuri xabaalaha wixii ku jiray, wa xusila la soo kulmiyo maa fi suduuri qalbiyaalkiiyo xabadyaalka wixii ku jirana bannaanka la soo dhigo. miyuusan ogayn inna rabbahum dadka rabbigoodu bihim ayaga yowma-idin maalinkaas la khabiirun mid caalim ku ah oo gunta hoose waxa weeye ka warqaba inuu ilaahay yahay wuusan ogayn baa la yidhi. bismi illaahi araxmaani araxiim. walcaadiyaati baan ku dhaartuu yidhi ilaahay fardihii degdegahayay dabxan dabxiga waxaa la yidhaah sawtu anfaasi alkhayl idaa caddad. cantara nin la yidhaah wuxuu yidhi oo shucarada carbeed ka mid ah. waalkhaylu tagtaxu xiina tadbaxu fii xiyaadi lmowti dabxan
macnaha farduhu inay qaylinayaan buu sheegay oo waxa weeye dabxigu waa dhawaqa ka yeedha baa la yidhi wuxuu ilaahay ku dhaaranhayaa fardaha jihaadka u baxa oo markay karri iyo farri samaynhayaan oo weerarayaan cadowga ayaa waxaa la maqlayaa neeftooda sawtun jahiirun baa la maqlayaa kaas baa dabax la yidhaahdaa waa markii farduhu ay degdegaan buu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas uxda ay leeyihiin dhawaqa ka yeedhaya oo markaa waxa weeye feerahooda ka yeedha oo waxa sawdaynta ah ayaa la yidhaahdaa wey kaas baa la yidhaahdaa bismillaahi araxmaani araxiim waalcaadiyaati fardihii degdegahaya baan ku dhaartay dabxan xaal ay yihiin kuwa sawdayn neeftuurahaya falmuuriyaati fardaha qoobabkooda ku kicinhaya dabka oo sidii madag camal waxa weeye ee dabka waxa weeye ee shararkiisa kicinhaya dhimbilaha dabka kicinhaya dhulka markay qoobka ku dhiftaan dhagxaanta oo habeenkii ay guuraynayaan fardaha kicinhaya qadxan ayagoo qoobabkooda ku garaacahaya dhulka iyo dhagxaanta habeenkii dab kicinhaya baan ku dhaartay oo waxa weeye qadxan xaalayihin kuwa ku garaacaya dhulka falmuuriyaati kuwa ku kicinhaya ama bixinhaya dabka falmuuriyaati kuwa dabka bixinhaya falmuuriyaati qadxan kuwa qoobabkooda dabku bixinhaya oo dhagaxa markay ku dhiftaan dabka kacahayaan ku dhaartay falmuqiiraati fardihii weerarhaya baan ku dhaartay ciidanka gaalada subxan waqta subxin subaxa markii ay tahay oo faaharna kicinhayeen bihi bisababi naqci boorkaas sababtiisa oo faraha badan oo ayaga orodkooda ka yimid ay mawdica ay ku weerarayaan waxay ka kicinayaan naqcan boor baa meesha dhan qabsanhaya fa wasadna waxay dhexdhexaysanhayaan bihi bisababi naqci boorkaas sababtiisa jamcan ciidan aad u fara badan oo gaaladii ah bay bartamaha ka istaagahayaan intaas baan ku dhaartaye innal insaana insaanku lakanuudun waa mid diidma badan oo inkirid badan lirabbihi ilaahiis ilaahay nicmadiisa ayuu inkirahayaa waa gaalkii ilaahay aan rumaynin ama ruuxii kastoo ilaahayba waxa weeye nicmadiisii ku kufriya wa innahu ilaahayna calaa daalika inkiriddaas nicmada ilaahay uu gaalku inkirahayo la shahiidun waa mid mara ka ah shaahid buu ilaahay ka yahay subxaanahu wa tacaala wa innahu insaanku lixubbilkhayri xoola jacaylka la shadiidun waa mid ku daran wa innahu insaanku lixubbilkhayri xoola jacaylka la shadiidun aad ayuu ugu daran yahay afalaa yaclamu miyuusan ogsoonayn idaa buchira haddii la soo saaro maa filqubuuri qabriyaalka wixii ku jiray ama xabaalaha ku jiray oo waxusila la soo kulmiyo maa fi suduuri xabadyaalka wixii qalbiga lagu qabtay miyuusan ogayn inna rabbahum rabbigoodu bihim ayaga yowma'idin maalinkaas la khabiirun ilaah khabiir ku ah oo caalim ku ah oo ka amaalmarinaya waxay sameeyeen inuu ilaahay yahay sooma oga ayaa la yidhi sidaas ayaa lagu tilmaamay marka waxa weeye ilaahay hadda caalim buu ku yahay waxa addoonkaas iyo ficiladaasoo dhan ilaahay caalim buu ku yahay ilaahay wuxuu ku dhaaranhayaa wuxuu doono annagu ilaahay magaciisa waxaan ahayn kuma dhaaran karno nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii dhaaranayaahi yousan dhaaran ilaa ilaahay mahane wax kale yousan ku dhaaranin laakiin ilaahay wuxuu doonuu ku dhaaran karaa walcasri baan soo marnay salaaddii casir buu ilaahay ku dhaaranhayaa ilaahay wuxuu ku dhaaranayaa walcaadiyaad fardahan buu ku dhaaranayaa oo weerarka gaalada iyo jihaadka u baxa wuxuu ku dhaaranayaa fardaha iftiinka ay qoobkooda ku kicinhayaan wuxuu ku dhaaranayaa fardaha ciidanka weerarahaya wuxuu ku dhaaranayaa waxa weeye tiinkii saytuunkiibuu ku dhaaranhayaa qorraxdiibuu ku dhaaranhayaa dayixiibuu ku dhaaranhayaa wuxuu doonuu ku dhaaran karaa oo makhluuqa ka mid ah asagaa hadduu doono isku dhaaran karaa laakiin annagu ilaahay magiciisa ilaahay daatadiisa ilaahay ficilkiisa maahane wax kale oo inoo bannaan tahay inaan ku dhaarannaahi ma jirta ayaa la yidhi sidaasay axaadiista nabigu caddeeyeen calayhi salaatu wasalaam bismillaahi araxmaani araxiim waalcaadiyaati fardihii degdegayey oo jihaadka u degdegahayey
oo gaalada far iyo karri ku samaynayey baan ku dhaartay dabxan xaal ay yihiin kuwa waxa weeye neefgurahayoo sawdaynaya oo neeftuurahaya markaa dhawaqa ka yeedha markay ordayaan baa la yidhaahdaa gurxanka ka baxaya falmuuriyaati qadxan fardaha qoobabkooda iftiinka iyo dabka ku kicinhaya dhulka markay saa ugu dhiftaan habeenka mugdiga ah oo dhagxaanta ay ku dhiftaan qoobabkooda dab iyo waxa weeye iyo dambaaburo ayaa meeshii ka kacahaya baa la yidhi falmuqiiraati fardaha weerara ayaan ku dhaartay gaalada subxan wakhtiga subaxa ah ayay weerar ku soo beegahayaan oo gaaladii weerarahayaan fardahaas baan ku dhaarta buu ilaahay leeyahay waxa weeye ee falmuuriyaati qadxantu waa falkhaylullatii takhruju sharaarannaar dabka macnaha dhimbilihiisay soo saaraan min alardi biwaqci xawaafirihaa cala alxijaarati min shiddati aljaryi weeye oradka daraaddiis meeshay ku dhiftaan waxa weeye waxaa ka kacaya sidaas baa la yidhaahdaa qadxiguna waa sakiga oo dhagaxa meesha qoobkii lagu dhifan hayo weeye faaharna falmuqiiraati fardihii weeraraya baan ku dhaartay subxan oo fardaha wakhtiga subaxa cigaalada weerarahaya qabla duluuci shamsi wuxuu yidhi imaamulaluusi haadaa huwa almuctaad fi lqaaraat waa sida weerarka caadi ku ah waxay ahaayeen farduhu kuwa ku weerara ciidamadu waxa weeye habeenkii si aan cadowgu u dareemin waxay waabarkii qaban jireen ayagoon markaa kicin liyarow say u arkaan maa ya'tuuna wamaa yadruun waxay samaynayaan say u ogaadaan weeye marka fardaha wakhtigaas weerara baan ku dhaartay sidaasuu ku yidhi imaamulaluusi kitaabka la yidhaahdo ruuxulmacaaniga oo faaharna kicinayeen bihi bimakaanil caduwi cadowgu meesha uu joogo bay waxay ka kicinayaan fardihii boorka ama bihi binaqci waxa weeye ee faahaarad waxay kicinayaan bihi bimakaanil caduwi naqcan meesha cadowgu uu joogo bay boor ka kicinayaan fawasadna waxay ku dhexdhexaysanayaan bihi bisababi naqci boorkaas ay kiciyeen daraaddiis ay waxay ku dhexdhexaysanayaan oo dhexda uga istaagayaan jamcan jamac kulansan waa gaaladii oo acdaadii ah ay bartamaha ka istaagayaan 3 arrimood buu ilaahay ku dhaartay oo fardaha jihaadka lagu aadaa fardaha lagu jihaado oo cadowga weerar ku aadaan oo dabka qoobkooda ku kicinayaan oo wakhtiga waabarka ciidanka weerarayaan oo boorka kicin hayaan ayuu ku dhaartay intaas baan ku dhaartay ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala innal insaana insaanku lirabbihi linicmati rabbihi lakanuudun ilaahay nicmadiisa waa mid diidid badan oo ilaahay nicmadiisiibuu diiday shadiidulkufraan wuxuu yidhi ibnu cabbaas jaaxidun linicamillaah ilaahay nicmadiisa mid diidid badan weeye insaanku waa diidaa nicmada ilaahay wuxuu yidhi imaamulxasanna masaa'ibta ayuu xasuusan yahay nicamtana wuu halmaamaa wa innahu haddana ilaahay calaa daalika insaankana waa loo celi karaa damiirkan wa innahu insaanku calaa daalika diidmadaas ou nicmada ilaahay diiday la shahiidun waa mid mara ka ah ama wa innahu ilaahay calaa daalika diidmada insaanku ou nicmada ilaahay inkirayo la shahiidun ay la shaahidun waa mid mara ka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wa innahu insaanku lixubbi alkhayri xoola jacaylka la shadiidun waa mid aad ugu daran insaanka waxaa ka mida dabeecadiisa xoolaha jacaylkooda uu aad ugu daran yahay waa xoola jecel yahay waxa weeye aad buu u xoola jecel yahay wuxuu ku dadaalayaa xoolaha inuu kulmiyo haddii laba waadi oo maal ah oo adduunyaa la siiyo wuxuu dalbayaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam yaa mid saddexaad kuugu dara ayuu isleeyahay bini'aadamku marka wuxuu aad ugu daran yahay xoola jacaylka lixubbi cibaadihi wa shukri nicamihi daciif xagga ilaahay iyo cibaadadiisa iyo shukriga ilaahay daciifuu ku yahay xagga xoolaha iyo adduunyadana waa ku orad badan yahay wa kama hurdayo wakhti fiican buu u kacayaa waa u dheelmanayaa barafkiiyo qabowgiibuu u marayaa wax kasto isagoo jirran buu dukaankii furayaa isagoo jirran ayuu hawshii qabanayaa laakiin cibaadada ilaahay xanuun yar hadday qabato ma soo aadahayo masaajidkiibuu ka wehsanayaa
cilmigiibuu ka wehsanayaa cibaadadii iyo cabsidii ilaahay buu ka wehsanayaa wax yar hadduu iska dareemo cibaadada ilaahay wuxuu leeyahy anugu bistay baan ah ma aadi karo nicmada xoolaha iyo maalka aad buu u jecel yahay waxaad arkay intuu qandho kasta iyadoo hayda inuu qofkii soo shaqo tegahayo inuu baqaarkii iyo waxa weeye tukaankiiyo furayo inuu waxa weeye meeshii ganacsiga imanayo marka waxyaabaha waa xoola jacaylka adduunyadiibuu rabaa adduunyadii waa mid cagaaran ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waa mid indhuhu ay jecel yihiin waa mid macaansigeedu qofka uu macaansanayo waa xulwatun khadira waa fidno annaga nala ku fidnaynayo waxa weeye adduunyada waxaa lagu magacaabay lacibun wa lahwun ayuu ilaahay ku magacaabay iclamuu annama alxayaatu dunyaa lacibun wa lahwun lacib baa la yidhi oo waxa weeye waa laciboo ilmuhu bahasha ay ku dheelayaan ooy maantoo dhan ku ciyaarayaan oo ay ku daalayaan oon wax danu ka soo gelayn ay la mid tahay baa la yidhi waana lahwiyo lahwiga waxaa la yidhaahdaa qofka masalanba xoolaha gooban haya oo baadiyaha joogo geela jirta oo kale marka uu xoolihii iyo waxyaabihii sidaas ahay markii uu raaco oo xoolihii uu raaco qof baa ka hor imaanaya isagoo xoolihii geeliisii gooban haya markaasuu u sheekaynayaa waa daah baa la yidhi wuu ku daahinayaa soo kuugu sheekaynayo adoon xoolana soo raacanin adigoon cuntana doonanin adigoon cabitaan doonan oon maalna hayn nafna haynin oo daalay oo ku soo daahiyey oo wakhtigii uu kaa lumiyaad soo tegaysaa meel buu ku dhacayaa qofkii daah baa la yidhaahdaa adduunyada markii qofku uu macaansado oo markii uu wax yar iyo ciyaar iyo wax uu qabto waxyaaba sidaasa markii uu sameeyo wuu ku dahdaahayaa waxbuu soo qabanayaa waxbuu soo sansamaynayaa derbiyaduu soo fadhiisanayaa meelahaas buu tegayaa wuxuu u moodaa wakhtigan ku soo dhammaynaa buu ku leeyahay waa ku soo daahdaaha saacaddii baa ku socota malaa'igtii baa u qoraya maalinka dambe ayuu ka dhimanayaa asagoon jiscin wadan asagoo oon saad wadan iyadoon waxba ka horraynin adduunyada maxaa adduunyo loogu magacaabay waa lidanaa'atihaa hoosaynteeda wax liita weeye marka maalka jacaylkiisa aaduu bini'aadamku ugu daran yahay waa xoolo jecel yahay ilaa uu qabriga laga jiifiyo oo qabriga uu ka soo siyaarto ka soo booqdo ma dhergayo ayuu yidhi nabigu ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii laba waadi oo xoolaa oo dahaba bini'aadamka la siiyo labtaqaa haalisan ayuu yidhi mid saddexaad ayuu raadinayaa walan yashbaca badnu ibni aadam ilaa bituraab bini'aadamku dhergi maayo ilaa ciid in la dhigo oo ciiddu ay cunto qabri la jiifiyo ma ahane sidaas ayaa dabeecadda bini'aadamka oo ku miithaaliyey rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wa innahu insaanku lixubbilkhayri khayrka iyo adduunyada jacaylkeeda la shadiidun waa mid aad ugu daran ayuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala afalaa yaclamu miyuusan ogayn idaa buchira haddii la soo saaro jaahilkan oo adduunyada kaliya iska raacay oo waajibaadkii ilaahay ka tegey miyuusan ogayn haddii la soo saaro maa filqubuuri xabaalaha wixii ku jiray oo qabriyaalka ku sugnaay haddii bannaanka la soo dhigo oo wax kastaoo qabri ku doognaay bannaankaa la keenayaa qof qabriga ka soo baxa madaxiisa ciidda ka jafana nabigeenna ugu horreeya calayhi salaatu wasalaam wa xusila la soo kulmiyo maa fi suduuri xabadyaalka wixii ku jirayna waa la jamcinayaa bannaankaa la soo dhigayaa wax alla wuxuu sameeyey caqiidadou aaminsanaay qalbigiisa wixii ku jiray bannaankaa la keenayaa inna rabbahum rabbigoodu bihim ayaga yowma'idin maalinkaas la khabiirun mid caalim ku ah oo guntooda hoose iyo qalbiga waxay ku qariyeen ilaahay inuu caalim ku yahay oo ka amaalmarinayo oo ilaahay daalacanayo daawanayo miyaysan caalim ku ahayn baa la yidhi nacam caalim baan ku nahay waan ognahay inuu ilaahay maalinkaana daalacanayo kuwii usaad qaata maalinkaas ilaahay ha naga dhigo ilaa uu tilmaamayo nabigu calayhi salaatu wasalaam bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu zalzalati madaniyatun wa aayaatuhaa hamaanin suuraddaanna waxaa la yidhaha suuratu zalzala ayaa la yidhaahdaa waa madaniya madiina nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu joogay oo uusan nabigu maka u soo wareegin ayay soo degootay wahya fii usluubihaa tushbihu suwara almakiya
لما فيها من أهوال وشدائد يوم القيامة. وهي هنا تتحدث عن الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الساعة، حيث يندك كل صرخ شامق، وينهار كل جبل راسخ، ويحصل من الأمور العجيبة الغريبة ما يندهش له الإنسان، كإخراج الأرض ما فيها من موتى، وإلقائها ما في بطنها من كنوز ثميرة من ذهب وفضة، وشهادتها على كل إنسان بما عمل على ظهرها، تقول يا فلان عملت يوم كذا كذا وكذا. وكل هذا من عجائب ذلك اليوم الرهيب، كما تتحدث عن انصراف الخلائق من أرض المحشر إلى الجنة أو النار، وانقسامهم إلى أصناف ما بين شقي وسعيد. suuraddaani waxay ka hadashaa shidooyinka qiyaamaday ka hadashaa suuraddaani. gilgilashada dhulka dhan oo gariirayo isla dhaqaaqayo, oo sar kasta oo adduunyada ku taalla oo dabaq kastoo la dheerayo oo soo dumayo, oo buur kasta la soo rujinhayo ayay ka hadlaysaa. waxay kaloo ka hadlayaan wax kasta qiyaamadu markay dhacdo oo dhulkan gudihiisa ku jira oo maydah ilaa laga soo bilaabo adduunka qofkii ugu horreeyo lagu aaso wuxuu ahay baa la yidhi haabiil buu ahaa. qof bini aadama oo dhulka lagu aaso haabiil baa ugu horreeyey oo la dilo, oo gardarro loo dilo adduunyada, oo dulmi loo dilo. laga soo bilaabo ilaa ruuxa ugu dambeeyo adduunyada qabri la geliyo, wixii ku jiray bannaankay soo dhigaysaa. dahabka ku jira iyo dhaqaalaha iyo fidooyinka bannaankay soo dhigaysaa. insaan kasta wuu yaabayaa baa la yidhi. markaasuu leeyahay maxaa ku dhacay maanta? maa lahaa wa qaala alinsaanu maa lahaa, war dhulka maxaa ku dhacay? markaas bay ku marakacaysaa qof walba wuxuu sameeyey. qofkii korkeeda ku tukaday, qofkii maalin ku soomay, adduunka meeshaad marayso, gurigaad marayso, jidkaad marayso, khayrkaad ku akhriday, salaaddii aad ku tukatay, soonkii aad korkeeda ku samayday, qur-aankii aad ku dul akhriday, khayrkii aad ku samayday kaaga marakacaysa. xumaan hadduu qofku ku sameeyana waa uga marakacaysaa. dadkiina markii maxsharka la yimaado laba qaybay u kala baxayaan. qaybna hadda waa qaybtii shaqiga ahayd, naarti xaggeeday bay aadayaan, ilaahay naguma daro. qaybna waa qaybtii liibaantay oo kitaabkooda gacanta midig laga siiyey, jannadii bay aadayaan. suuraddaani marka gebi ahaanteed qiyaamaday ka hadashaa. waana tan suuraddii halkan bay macnaha ayada axkaamteedii xugunyaalkeediiba waaba kuwaanba. bismi illaahi araxmaani araxiim. idaa zulzilat haddii la gilgilo alardu dhulka zilzaalahaa gilgilashadeeda, wa akhrajad ay soo saarto alardu dhulku afqaalahaa culaysyaalkeeda, wa qaala alinsaanu insaankuna ou yidhaahdo maa maxay baa lahaa dhulka u sugnaaday. yowma'idin maalinkaas bay tuxadisu ka sheekaynaysaa akhbaarahaa korkeeda akhbaarta iyo arrimaha lagu dul sameeyo maalinkaas bay sheegaysaa. sababtii u sheegaydana waxa weeye ilaahay baa iyadana u sii sheegay bisababi anna rabbaka rabbigaaga nabiyullaahi moxamedow calayhi salaatu wasalaam sababta ay u sheegayda waxa weeye bisababi anna rabbaka rabbigaagabaa owxaa waxyooday lahaa dhulka ayuu ilaahay u waxyooday, wixii lagu dul sameeyo u sheegay, ayaduna waa sii sheegaysaa. yowma'idin maalinkaas yasduru nnaasu dadkii ayaa soo baxaya, qubuurtiiba waxay ka soo tegayaan, dadkiibaa soo tegaya oo soo laabanhaya oo soo rogmanhaya. meesha mawqifulxisaabka oo lagu xisaabiyay ka soo tegayaan, ashtaatan xaal ee yihiin kuwa kala beddelan oo kala jaad ah oo kala nuuc ah oo kala tagsan, oo qolana ay u socoto jannada, qolana ay u socoto naarta. qola laga sii siiye kitaabkooda gacanta midig, qolana gacanta bidix. qolana wejigooda uu ifayo, qolana wejigooda uu madow yahay. qolana ay faraxsan yihiin oo isku bagaanbegayaan, oo farax aawadii meel ay istaagaan ay weysan yihiin. qolana murug aawadeed ay leeyihiin allow yaa maanta ciid naga dhiga, alla maxaan sidaan u noqonnay, ayay ka soo tegayaan mawqifka ilaahay. qolada faraxsan ha nagu daro. liyurow inay arkaan aawadeed bay u soo tegayaan acmaalahum ay acmaala jazaa'ihim
acmaashii ay sameeyeen amaalmarintooda inay arkaan darteed faman yacmal qofkii sameeye buu yidhi ilaahay mithqaala darratin wasna darrah quraanjo wasankeed wax la eg oo khayran wanaag ah yarahu wou arkayaa waman yacmal qofkii sameeyey mithqaala darratin quraanjo wasankeed wax la eg sharran oo xumaato ah yarahu wou arkayaa wuu helayaa asaguna weeyi bismi illaahi araxmaani araxiim idaa zulzilat haddii la gelgelo waa gariir dhulka dhan oo wada gariirahayo idaa zulzilat haddii la gelgelo alardu dhulkii zilzaalahaa gelgelashadeeda oo dhulka dhan hal marsaa loo wada dhaqaajiyo wa akhrajat ayna soo saarto alardu dhulku ahqaalahaa culaysyaalka ku jira oo dhan bannaanka ay soo dhoobto wixii culaysho gudaheeda ku jira oo dhan wa qaala alinsaanu insaankuna ou yidhaahdo maa maxay baa lahaa dhulkan maxaa u sugnaaday maxaa ku dhacay dhulkan oo ay waxa bannaanka u soo dhigaysaa gudaheeda ku jira yowma-idin maalinkaas waa tanwiinu ciwad can jumalin tanwiintii lagu odhan jiray yowma-idin maalinkaas ayay tuxadisu ka sheekay doontaa akhbaarahaa khabaryaalkeeda korkeeda wixii lagu sameeyey adduunka markii la joogay maalinkaas bay ka marakacaysaa way sheegaysaa dhulku wixii korkeeda lagu sameeyey bianna rabbaka bisababi anna rabbaka rabbigaaga nabiyullaahi moxamedow sababteedii u sheegee owxaa inuu waxyooday lahaa ayada ilaahay baa u waxyooday dhulka ilaahay baa u sheegay wayna sii sheegay wixii lagu sameeyey yowma-idin maalinkaas yasduru nnaasu dadkiibaa soo fulahaya dadkiibaa soo tegahaya dadkiibaa soo rogmanhaya dadkiibaa soo baxahaya meesha mawqifkabay ka soo tegahayaan ashtaatan xaal ee yihiin kuwa kala tagsan kuwa kala jaad ah kuwa kala duwan kuwa kala beddelan maxay u soo tegahayaan oo meeshaas uga soo baxahayaan markii ruux dadku ay shaqaalo yihiin xaafiis bay imaanayaan waxa weeye shaqadoodii iyo waraaqihii iyo waxay dhiibayaan xisaabtoodii iyo waraaqdoodii iyo wixii ay bayaankoodii baa macnaha ay imaanaya marka hore meesha lacagta ay ka qaadanayaan ma imaanayaan waxay imaanayaan meeshii ay ku xisaabtami lahaayeen oo xaqooda waxa weeye xaafiiskay marka hore soo marayaan kabacdina meeshii ay ka qaadan lahayn ujradooday aadayaan mawqifkiibay yimaadeen waa lala xisaabtamay meeshii ujradooda ay ka qaadan lahaayeen bay aadayaan liyurow inay arkaan aawadeed bay u baxayaan acmaalahum acmaashooda wixii looga amaalmariyaa looga jeedaa nabigu ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala maalinkaas qofkii wanaag soo samaystay ma weynaayo qofkii xumaan sameeyana ma weynayo wanaaggii isagoo mudaacafa buu ka horreeya faman yacmal qofkii camal falay mithqaala darratin quraanjo wasankeed wax la eg khayran oo wanaag ah yarahu arkee wuu arkayaa weeyaan yarahu wuu arkahayaa waman yacmal qofkii camal falay mithqaala darratin quraanjo wasankeed wax la eg oo sharran xumaataana yarahu arkee asna waa helaya qofkii xumaan sameeyena xumaantiibaa ka horrayda qofkii wanaag sameeyena wanaaggiibaa ka horreeya sidaas baa looga jeedaa maalinkaas marka waa maalinka la kala baxahayo oo qof walba wuxuu samaystay ayuu helahayaa ilaahay kuwa khayrka arka oo khayrka lagu amaalmariyo oo khayrku uu ka horreeyo ilaahay ha naga dhigo waxaad samaysatay oo aan waxa weeye lagu dulmin baa gacanta lagu gelinhayaa bismi illaahi araxmaani araxiim ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala dhulka haddii la dhaqdhaqaajiyo oo dhulka dhan uu hal mar wada dhaqaaqo hadda dhulka waxaa la yidhi zilzaalkan idaa zulzilat alardu zilzaalahaa dhulka haddii la gilgilo gilgilashadeeda dhulka dhamma hal mar isla dhaqaaqaya baa la yidhi azalzalatu alatii taliiqu biha calaa cidami jurmiha wadalika cinda qiyaami asaaca tatasalzalu watataxaraku taxriikan mutataabican watadaribu biman calayha walaa taskunu xataa tulqii maa calaa dahriha min jabalin wa shajarin wa binaa'in wa qalaacin baa la yidhi dhulka dhan aa isla dhaqaaqaya hal mar oo isku daba xiga
waa gariir oo dunawi ah, dhulgariir weeye. wax kastooo dusheeda saaran ayay la dhaqaaqaysaa, mana xasilayso korkeeda wixii saarnaay ilaa ay ka tuurto. buurihii, geedihii, guryihii, dabaqyadii, kulli bannaankay soo dhigeen. waa sidaa waxa weeye imaamu fi tasiil iyo tafsiir kulli ay culammadu caddeeyeen wey. saas baa dhacaysa baa la yidhi. marka wa akhrajat alardu, dhulku haddana waxay soo saaray afqaalaha, culeysyaalkeeda, wixii gudaheeda ku jiray oo mayd ah oo kunuus ah. wuxuu yidhi cabdullaahi ibni cabbaas, akhrajat mawtaaha, wixii ku jiray gudaheedoo mayd ah bay soo saaraysaa. mundir ibnu saciidna wuxuu yidhi akhrajat kunuusuha wa mawtaaha, waxay soo saaraysaa wixii kayd ku jiray iyo wixii mawd ku jiray. nabigeennana wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, tulqi alardu aflaada kabadiha amhaala alusطuwaanati min aldahabi waalfida fayajii'u alqaatil fayaquulu fii hada qutiltu wayajii'u alqaadic fayaquulu fii hada qadactu raximii wayajii'u asaariq fayaquulu fii hada qudicat yadii ثuma yudcawnahu falaa ya'khuduuna minhu shaya. wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam, markii dhulka oo dahabkii iyo adduunyadii ku jiray bannaanka soo dhigo ayaa waxa imaanaya buu yidhi ruuxii qofka dili jiray. dadka maanta dulmiga iyo gardarrada kun wax ka yar ama mara yar oo la xirto ama wax yar oo noloshaada kuugu filayn ayaa qof boqollooba maanta loo dilaya. dulmiga meesha uu gaaray intaas oo waxa weeye masaakiin ah oo tabaalaysan oo carruur ah oo dumar ah ayaa waxaa loo baabi'inhayaa wax yar oo adduunye ah oon waxba ahayn. maalinkaas yoomulqiyaamada ah marka kii wax dili jiray wuu imaanayaa, markaasuu leeyahay xoolahan maanta bannaanka iska yaalla oo qof raba aan la arkin ayaan wax u lay jiray. kii gacanta qaraabada kii jari jiray oo qaraabadiisa maalka u diidayey wuu imaanayaa, markaasuu leeyahay arrintan baan qaraabadaydii u gooyi. kii tuuggahay waa imaanayaa, markaasuu leeyahay gacmahayga wixii loo gooyey waxay ahaayeen maalkan xunka hoyarka ah. waa loo yeerayaa, markaasaa leeyahy qaata, ma rabnay leeyihiin, maxaa yeele waa yoomulqiyaama hadde. dhulkii dhammaa wixii ku jira u bannaanka soo dhigaya. wa qaala alinsaanu maa lahaa, insaankuna wuxuu leeyahay war dhulkan maxaa u sugnaaday. maa lilardi tazalzalad haadihi zalzalata alcadiima, dhulka maxaa ku dhacay oo ay sidaan ugu dhaqaaqaysaa. wa lafadad maa fii badniha, waxaa ku jiray maxay bannaanka u soo dhigtay. yaquulu daalika dahshatan wa tacajuban min tilka alxaalati alfadiica, wuxuu la yaaban yahaa baa la yidhi arrintu sida ay tahu la yaabay. maalinkaas waxa weeye qof kasta uu yaabayo, ilaahay yaabka ha noo yasiree. yowma'idin tuxadithu akhbaaraha, waxay ka sheekaynaysaa dhulku akhbaarteeda, korkeeda wixii lagu sameeyey wararkii waxa weeye sida wargeysyadu wararka u soo sheegaan ka daran bay wax walba u sheegaysaa. akhbaartii korkeeda lagu sameeyey sheegaysaa. bianna rabbaka awxaa laha, nabiyullaahi muxamedow calayhi salaatu wasalaam rabbigaagaa u waxyooday. iskama sheegaydee ilaahay baa u sheegay, way sii sheegaysaa. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi asagoo arrintaas ka hadlaya ayuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam, ma taqaanin ayuu yidhi, xadiis imaamu tirmidi oo warinaya caddaynaya, atadruuna maa akhbaaruhaa ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. qaaluu allaahu wa rasuuluhu aclam, ilaahiyo rasuulkiisa og bay dhaheen asxaabtu, annagu ma naqaano. saxaabtu waxaysan oqoon ilaahiyo nabigiisa og bay dhihi jireen. maanta waxaad dareemaysaa allaahu wa rasuuluhu aclam in lagu murmaayo. meeshay marayso waxa weeye arrintu meeshay marayso waa meel aad u xun macnaha. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, fa ina akhbaaraha an tashhada calaa kulli cabdin aw amatin bimaa camila calaa dahriha taquulu camila yowma kada kada wa kada fa haadihi akhbaaruhaa. wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, qof walba wuxuu dusheeda ku sameeyo ayay dhulku sheegaysaa yoomka qiyaamo. waxay leedahay qofkaanu sidaasuu yeelay, maalin hebel, taariikh hebel, wakhti hebel sidaasuu yeelay, xoolahaas buu xaday,
beentaas buu sheegay dulmigaasuu sameeyey qofkaas buu caayey tuugnimadaasuu sameeyey qaraabadiibuu dilay qofkaasuu hub u gaday qofkaasuu qoryo u iibiyey qofkaasuu waxa weeye ou lacag ka khiyaanay ammaanadaasuu khiyaanay wax kasta oo la sameeyo oo caalamka khiyaano ah khamrow cabbay gabar ajnebiya ayuu waxa weeye sidaasay gabadhii yeeshay wiilkii sidaasuu yeelay labadoodu wax aysan dhulku sheegayn lama arko dhulkii baa nugu marakacaya nabigeennii baa nugu marakacaya calayhi salaatu wasalaam malaa'igtii baa nugu marakacaysa garbaheenna ayay saaran yihiin wax kastoon samaynayno taaka taaka ayaa loola socdaa waa inaan isdaba qabannaa soomaaliya aan isdaba qabanno soomaaliya ilaahay aan ka cabsanno muslimiinay ilaahay aan ka cabsanno ikhwaanii fillah ilaahay aan ka cabsanno ilaahay aan u tooba keenno qof walba hays xisaabiyo intaan la xisaabin caaqil waxaa la yidhaha buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam man daana nafsahu wa camila limaa bacda almowt qofka isxisaabiya naftiisa dulleeya la xisaabtama ka celiya baadilka ku qasba wanaagga iyo khayrka aakhirana u camal fala kaasaa la yidhaha qof wanaagsan nacasna waxaa la yidhaha waalcaajisu man atbaca nafsahu hawaaha wa camila limaa bacda almowt qofka naftiisu balwadday jeceshahay iska raaca oo dhimasho waxa weeye naftiisu waxay rabto qofka iska raaca oo ilaahayna man atbaca nafsahu hawaaha wa tamannaa cala allaahi alamaaniya baan rabaa ilaahayna wuxuu ka rajaynayaa khayr naftiisana balwaddeediibuu iska raacay nacas baa la yidhaahuu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam haddaba dadka cuqalada aan u naqaanaa cuqalo ma ahan cuqalo waxaa la yidhaahdaa dadka ilaahay ka cabsada oo waan wanaagsan haaulaa'i hum alcuqalaa haaulaa'i hum alcuqalaa haaulaa'i hum alakhyaar kuwaasaa waxaa la yidhaha akhyaar ayagaa la yidhahdaa culammana ayagaa la yidhaahdaa ashraafunnaasna ayagaa la yidhaahdaa dadka tadabburo oo ulul albaab ilaahay ku tilmaamay oo caqliga leh oo diinta lahu kuwaas way ilaahay nagu daro waa in qof walba oo isxisaabiya way ka marakacee buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala yowmaidin tuxadithu akhbaarahaa bianna rabbaka awxaa laha ilaahay baa u waxyooday yowmaidin maalinkaas yasduru nnaasu dadkii baa soo laabanaya buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam dadkii ayaa soo laabanhaya oo soo fulahaya oo ka soo tegaya meesha mawqifka xisaabta ashtaatan xaalayhiin kuwa kala beddelan oo kala tagsan oo qayb ah qola jannada loo diraa qola naarta qola wejigooda waa nuuraa qola waa mugdi wejigoodu qola kitaabkii gacanta midiga laga siiyey qola gacanta bidix qola waa faraxsan yihiin qola way murugaysan yihiin maalinkaas qolada liibaanta oo kitaabkooda gacanta midig laga siiyo oo wejigooda uu nuurahayo oo salaaddii ay ka muuqanayso oo khayrkii uu ka muuqanayo oo shafaacada rasuulka hela calayhi salaatu wasalaam oo xawdka nabiga biyo ka cabba oo nabiga zumradiisa liiskooda uu ku jiro oo ciliyiin lagu daro oo malaa'igtu u mara kacaan ilaahay nagu daro halkaas baa lagu kala bixi doonaa hadda waxa weeye waa carabkan iyo doodan iyo hadalkan ma soconaayo meeshaas baa lagu qaybsamayaa oo waxa weeye dadka kuwa wanaagsan iyo kuwa xun waa la kala saari doonaa insha allah yoom aan yoomkaan ahayn oo aysan doodda iyo muranka iyo qajajacdu soco doonin ayaa la xisaabtami doonaa qof walbow isdaba qabo naftaada u daneey kullu nafsin bimaa kasabad rahiina man camila saalixan falinafsihi waman asaa'a fa calayhaa buu ilah yidhi subxaanahu wa tacaala wanaag qofkii sameeya naftiisu u sameeyey qof kale u sameeyey ma jidho liyurow inay arkaan darteed bay u soo tegayaan acmaalahum yowmaidin maalinkaa yasduru nnaasu dadku way soo laabanayaan way soo baxayaan way soo tegayaan meesha xisaabtay ka soo tegayaan ashtaatan xaalayhiin kuwa kala beddelan oo kala tagsan oo kala jaad ah oon isku nuuc ahayn oo qolana kitaabkoodii gacanta midig ka qaateen qolana gacanta bidix bay soo tegayaan liyurow inay arkaan daraaddeed bayna u soo tegayaan acmaalahum acmaashoodii oo khayr ama shar ah faman yacmal qofkii sameeya mithqaala darratin quraanjo wax la eg wasankeeda oo khayran wanaaga yarahu wuu arkayaa qiyaamada xaashidiisii bay ugu qoran tahay
iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiban. waxay odhanayaan mujrimiintu maa lihaada alkitaab laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa wajaduuha xaadiran. waxay ka weynayaan ma jirto weeyaan. maa lihaada alkitaab laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiira. wax uu ka tegaaya mala baa la yidhi. kitaabkooda ayay saa u soo kala bixinayaan. markaasi wax kasta oo ay soo sameeyeen adduunka markay joogeen ayaa kitaabkooda ku qoran. qaladkii ou yidhi, hadalkii ou yidhi, wixii uu sameeyey adduunka markuu joogay kitaabkiisiyuu qof walbaa ka helayaa walaalayaal. marka ilaahay inaan ka cabsanno oo ilaahay qof walba inuu la xisaabtami doono ou ogaado oo ilaahay cabsidiisa qof walbaahi ou ka dhigto zaad, sidaas ayaan isku ballamaynaa. waxay odhanayaan baa la yidhi maa lihaada alkitaab laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiira ilaa axsaahaa. sidaas weeye aayaddu. wawajaduu maa camiluu xaadiran walaa yadlimu rabbuka axada. ilaahay ha noo yasiro. faman yacmal mithqaala darratin quraanjo wax le'eg qofkii sameeya khayran oo wanaaga yarahu wuu arkayaa. waman yacmal qofkii sameeya mithqaala darratin quraanjo wasankeed wax le'eg sharan oo xumaataana yarahu asna wuu arkayaa. wax kasta ood samaydo qiyaamada ayaa horta lagaa soo dhigaya. darrada waxaa la yidhaahdaa asqaru namli. wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas idaa wadacta raaxataka cala alardi huma rafactahaa fa kullu waaxidin mima lasaqa bihi min aturaab darra. dhulkaas gacanta markaa saa u saarto waxa ku soo raacana waa la yidhaahdaa. si kastoo tiraaba qof kasta wuxuu sameeyo haba yaraadeene wuu arkayaa. darrada waxay kaloo culammadu ku tilmaameen waxa weeye waa asqaru namla waa zinatu darratin min aturaab yajiduhu kadalika wayalxaqu jazaa'ahu calayhi. وهذا مثل ضربه الله تعالى في أنه لا يغفل من عمل ابن آدم صغيرة ولا كبيرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يوم كاسا نقدم بأي قف كستواناك هسا ما يستو إلهينا سيدة توفيق ده هنا وافتشيو مسلمين جدك توص إلهي هنا وافتشيو. كتابك إلهي كوكو عمل فلا كل رقم إلهي هنا قدقو كوو قيامة الشفاعة قاد إلهي هنا قدرو وزمرد الرسولك عليه الصلاة والسلام كبيرة. intaas ayaan caawa casharkeenna ku soo koobaynaa. wa aquulu qawlii haada wa astagfiru allaha lii walakum walilmuslimiina caama. hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.